1969kii ayuu la wareegay talada dalka dhaca waqooyiga Afrika ee Liibiya. Waxa uu dhashay 1942 sideed sano oo uu shaqeynayay dawladda kadib ayuu xukunka la wareegay. xilligaas waxa uu ahaa dhalinyaro ka yar da'da 30 jirka. markii uu dhintayna waxa uu jiray 69 sano. 42 sano oo kamida waxa uu xukumayay Jamhuuriyadda Liibiya. hadda waad ila garatay dhowr tilmaamood oo aan bixiyay awgeed ninka aan ka hadlaynaa. haddii aadan weli garan aan kuu sheego, waa Muammar Mohammed Abu Minyar al-Qaddafi, hogaamiyihii hore ee dalka Jamhuuriyadda Liibiya. kama hadlayno ayaamihiisii xukunka, wixii uu qabtay ama geystay dhib iyo dheef. Liibiya maanta iyo waxa ay ku sugan tahayna kama sheekaynayno. laakiin waxaan doonaynaa inaan dib kuugu celinno waraysigii ugu dambeeyay ee laga qaaday markii ay ishayeen dawladaha reer galbeedka oo taageerayay jamhado iyo shacab ka soo horjeeda oo muddada dheer ee xukunka hayay diidanaa. waraysigan oo aan dib idinkugu turjunay waxaa qaaday 3 wariye oo u dhashay dalka boqortooyada Ingiriiska. waraysigii ugu dambeeyay ee Muammar al-Qaddafi intiisa badan waxa uu ku difaacay dhaleecayn goortaas loo jeedinayay oo la xiriirtay inuu awood iyo hub culus u adeegsaday shacabka banaanbaxayay oo ka soo horjeeday xukunkiisa gudaha Liibiya. Towns as well as most of eastern Libya. He drove up to this restaurant on the Mediterranean coast. wuxuu inoogu yimid maqaaxidan ku taala tacalka badda dhexe ee Mediterranean Sea, isagoo oo qaba dharkiisa astaanta ganacsi ah iyo ookiyaalaha madow ee qorraxda. tani waa dabeecadda nololeed ee uu aadka u xifdiyay 41 sano ee uu markan awoodda hayo. waan ku salaamay. waxaan ahay Cristiano Ambor. is arag wanaagsan. si aan xal lahayn ayay dadkiisu u doonayaan inay arkaan isaga. isaguna ma cararin. balse halkan Tripoli ayuu ku sugan yahay, taas oo ah dhufayskii ugu dambeeyay. isaga kama muuqato wax calaamada oo muujinaya walwal. hase yeeshee isku soo duubo, waxaa socda kacdoonka sii kordhaya oo looga soo horjeedo. No demonstration at all in the streets. No one against us. Against me for what? ma jiraan wax isu soo baxaya oo ka socda jidadka. ma jirto cid inaga soo horjeeda. maxay yihiin waxa naga soo horjeeda? waayo ma ihi madaxweyne. way jecel yihiin dhammaan dadkayguna aniga ayay ila jiraan. dhammaantood way jecel yihiin. waxay dhimanayaan iyagoo ay difaacaya dadkaygu. haddaad tiri waa ay jecel yihiin, maxay u qabsanayaan Benghazi una sheegayaan inay ka soo horjeedaan? waa al-Qaacida. ma aha dadkayga. waa al-Qaacida haa. Colonel Qaddafi, madaxweynaha dalka Mareykanka, hogaamiyaasha Britain iyo madax kale waxay kuugu baaqeen inaad xilka ka degto oo aad isaga tagtay Liibiya oo aad isaga tagtay awoodda. ma samaynaysaa taas? في واحد يترك بلاده. yaa ka tagaya gurigiisa hooyo. maxaan uga tagayaa gurigayga hooyo? maxaan uga tagayaa Liibiya? waxay leeyihiin waxaan taas u samaynay sababtoo ah waxaad amartay in awood lagala hortago dadkaaga lana toogto banaanbaxayaasha. waa beentaasi 100%. waxay yidhaahdeen waxa aad amartay in diyaarado lagu duqeeyo shacabka, rayidka la duqeeyo iyo la adeegsado hubka helikabtarada. duuliyayaashaada khaaska ah ee diyaaradaha dagaalka laba ka midana waa ay baxsadeen, kuwa oo diiday inay sii wadaan fulinta amaradaada lagu beegsanayo shacabka. miyaad bixisay amaradaas? argagixisada ayaa samaysatay meelo ay si toos ah hubka ugu kaydsadaan dabadeedna ku qaybsadaan iyaga dhexdooda. kadib waxaan amarnay in la duqeeyo meelahaas argagixisadu ay hubka ku haystaan si aan iyaga gacantooda hubka ugu jirin. waxay kugu eedeeyeen inaad adeegsatay hub kiimika ah iyo wax la mid ah. miyaad weligaa adeegsatay kuwaas? marka ugu horreysa dhibaatada waa inaan wax yar ka hor dhammaynay arrimahaas Britain iyo Mareykanka. waan dhammaynay waxaas. waxaa kaliya macquul ah in qofku cadowgiisa u adeegsado hubka kiimikada ah waqtigan casriga ah isagoo ay garab joogaan shacabkiisu. aniga oo dhinac jooga 2 wariye oo British ah ayaan weydiiyey isaga haddii uu amray madficii lagu soo riday diyaaradii Lockerbie oo ay ku dhinteen inta badan 200 oo qof oo Amerikaan ah in ka badan 20 sano ka hor. taas oo mas'uuliyaddeeda sheegtay wasiirkiisa cadaaladdu. Qaddafi ima siinin jawaab toos ah. tani waa wax sheegga eyga. waan dhammaynay midaas.
ma rabo inaan u diyaar garoobo ku lugaynta qabuuraha dhexdooda. ma is leedahay Maraykanku way ku khiyaamayaan? sideed ula xisaabtami kartaa imika marka la eego sida ay kula dhaqmayaan iyagu? dabcan haa, waa khiyaano weyn, mana laha akhlaaq, waa nacasnimo dhaafsiisan. macquul ma aha in aan adduunka ku go'aan qaato waxa warbaahintu ay tabinayso. waa inay ogaadaan xaqiiqada ka jirta gunta hoose ee Liibiya, dabadeedna taas ku go'aan qaataan. waxaanu weydiinay wixii uu sheegay madaxweyne Obama. marar badan ayaan la wadaagay fikirkayga. waxaan aaminsanaa in uu yahay nin yar oo wanaagsan. waxaan ka caawiyay siyaasadda caalamiga ah. xiriirka labada dal ka dhaxeeyana waa isbedelay. balse waxaan arkaa inuu si khaldan wax u fahmay. mana rumaysan karo nooca bayaan ee uu soo saaray. wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in quwadaha shisheeye mar kale doonayaan inay gumaystaan Liibiya. wuxuu wacad ku maray inuu la dagaalami doono ciddii walba ee duulaan ku ah shacabka Liibiya. kani waxa uu ahaa waraysigii ugu dambeeyay ee laga qaado hogaamiyihii hore ee dalkaasi Liibiya, Colonel Muammar al-Qaddafi, oo 42 sano oo cumrigiisa ka mid ah xukumayay jamhuuriyadda Liibiya. waxaana uu ku geeriyooday ugu dambayn buundo yar hoosteed oo ay ku dileen dablay hubaysan oo ka soo horjeeday muddada dheer ee uu kursiga joogay.